dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta Imaaraadka Carabta kala wareegtay lacag gaarayso 9.6 milyan oo dollar oo xukuumadda Abu Dhabi ugu talagashay inay qayb ka noqoto taakulada dadka ay saameynta weyn ku reebeen abaaruhu xilli xaaladda abaareed ee dalka ay ka sii dareyso. munaasabadda ay lacagta kula wareegtay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiirka maaliyadda, gudoomiyaha bangiga dhexe iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala socday labada dowladood. Roble ayaa dowladda isku tagay Imaaraadka uga mahadceliyay kaalinteeda ku aadan gurmadka shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna intaasi ku sii daray in tani ay qayb ka tahay dadaalkiisa dib u hagaajinta xiriirka labada wadan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waqti geliyay sidii loo hagaajin lahaa soo celinta xiriirka labada dal oo xumaaday sanadkii 2018 waxaana tallaabada soo celinta xiriirka suurta gelinaysa soo laabashada mashaariicdii horumarineed ee Imaaraadku ka fulin jiray Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Roble. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mudane Abdiraxmaan Ducaale Beele ayaa isna sheegay in lacagtan lagu shubay bangiga dhexe ee Soomaaliya si waafaqsan sharciga maaliyadda dalka loona isticmaali doono arrimaha gargaarka. waxa Ilaahay mahadiya maanta inaan halkan Central Banka ku gudoonay deeqdii dawladda walaalaheena Imaaraadku in siiyeen oo 9 milyan iyo 600 kun oo dollarka ah oo halkan maanta aan ku gudoonay. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa safiirka iyo dawladda Imaaraadka oo inoogu deeqday lacagtan Soomaaliya la siiyay. waxaan maanta aan ku shubaynaa account-kii dawladda TSA-ga treasury-ga ayaan ku shubaynaa. process-kii loogu shubayayna waa dhammaystiraynaa. lacagtu waxa weeye lacag dawladda Soomaaliyeed loogu deeqay. habka loo isticmaalayana wuxuu noqon doonaa hab waafaqsan nidaamka maaliyadeed ee dalka u yaala iyo hadba dawladdu meesha ay damacday inay ku isticmaasho. marka runtii aad baan ugu faraxsanahay, waana ku mahadcelinaynaa ambassador. waxaa arrintaasi goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraheena Maxamed Xuseen Roble oo arrintan runtii soo dhiraandhiriyay. isagana aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqada uu soo qabtay. marka lacagtii waa la inagu soo wareejiyay. waxa kale oo goobjooga of course governorkii baa goobjooga, gudoomiyihii banka iyo xisaabihii baa goobjooga, gudoomiye ku-xigeenkii baa iyaduna goobjooga. marka runtii waa loo dhan yahay. xalaale waa cadaane. waxaan doonaynaa dadku arkaan lacagtii la inagu soo wareejiyay. dhankiisa safiirka Imaaraadka Carabta oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in ujeedadoodu tahay inay qayb ka qaataan daboolidda baahiyaha dadka Soomaaliyeed. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله لدعم الشعب الصومالي الشقيق وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المتضررين من الجفاف في الصومال. تم تسليم مبلغ 35 مليون درهم ما يعادل 9 مليون و600 ألف دولار إلى الحكومة الصومالية. إن هذا المبلغ هو مسترد من الحكومة الصومالية السابقة، مسترد من الحكومة الصومالية نتيجة خطأ من الحكومة، مسترد للحكومة الصومالية الحالية نتيجة خطأ من الحكومة السابقة. وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تسليمه لفخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدعم مشاريع العمل الإنساني في الصومال، والتي تتم تحت إشرافه أو من يراه مناسبا لدعم الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف ودعم كافة المشاريع الإنسانية. إن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي الشقيق وتقديم كافة الدعم لتحقيق طموحاته في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii dhowaan dowladda Soomaaliya ay fasaxday lacagtan oo 2018 laga xayiray Imaaraadka kadib markii lagu qabtay garoonka Aadan Cadde. kadib xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa hoos u dhacay sanadihii u dambeeyay
iyadoo khilaaf uu soo kala dhexgalay iyaga iyo dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddase wuxuu u muuqdaa inuu isbedel ku yimid kadib doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha Carabeed ee saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya. si kastaba arrimahan oo idil waxay ku soo beegmayaan iyadoo maalmo ka hor uu ra'iisul wasaare uu booqasho ku tagay Imaaraadka Carabta isagoo ka qayb galay aaska madaxweynihii waddankaasi, wuxuuna sidoo kale kulamo la soo qaatay madaxda Abu Dhabi. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus. guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.